Kudhawaad konton qofood ayaa ku dhintay weerar lagu qaaday masjid ku yaala magaalada Kudhawaad ee wadanka New Zealand sida ay xaqiijiyeen booliiska dalkaasi. wararka ka imaanaya magaalada Kudhawaad ee dalka New Zealand ayaa ku soo warramaya in qof hubeysan uu weerarka ku qaaday masjid ku yaala magaalada Kudhawaad ee wadankaasi New Zealand. weerarkan ayaa sababay dhimashada in ka badan 50 qofood halka sidoo kalena goobaha caafimaadka ee dalkaasi lagu dabiibayo ku dhawaad 49 ruux oo ku dhaawacmay weerarka toogashada. dadka toogashada lagu dilay ayaa laga aqoonsaday 3 ruux oo Soomaali ah waxaana ka mid ahaa Sheekh Muuse Nuur Caraale oo la sheegay inuu ahaa macallin dugsi, Sheekh Cabduqaadir oo ka tirsanaan jiray shaqaalihii wakaaladii biyaha ee Soomaaliya, iyo waliba Cabdullaahi Aadan Diiriye oo ah wiil yar oo 6 sano jir ah halka sidoo kalena weerarka uu ku dhaawacmay aabihii Aadan Diiriye. shakhsiga weerarka geystay ayaa la aaminsan yahay inuu dhashay wadanka Australia. madax uu ka mid yahay madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa cambaariyay falkan toogashada ah ee lagu dilay muslimiin ku cibaadeysanayay Masjid Nuur oo ah masjidka ugu weyn ee lagu cibaadeysto oo ku yaalo magaalada Kudhawaad ee wadanka New Zealand. booliiska dalka New Zealand ayaa sheegay in 3 qofood ay ku jirto haweeney loo soo qabtay toogashadan ka dhacday Masjidul Al-Nuur.